السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دما ولا ليك مeel kasta joogtiin dunida daafeed oo walaalkiin aan iftaax hadalna isku soo noqod wanaagsan fadlan dadka markuu reesa channelka taxtiib daanis waxa ka codsanaa subscribe ina dhaadin gambalka furtid like share iyo free minus in comment ino reeb doonta insha Allah yes maanta videoga ahaayo uu ka duwan yahay videoyadii hore haday ahaayeen heeso iyo haday aan challenge iyo waxyaabo soo marka waxa rabaa maanta video aad iyo aad u qiiro badan misna soo bandhigay alfanaan dayax dal nuurshe soo marka insha Allah videogaas aan rabaa inaan isla daawano iyo ficilka uu sameeyay dayax soo marka insha Allah daawasho wanaagsan fanaan dayax dal nuurshe ayaa muujiyay inuusan kaliya u taagnayn madadaalo music iyo ciyaar wuxuuna soo bandhigay inuu yahay fanaan u damqada shacabkiisa gaar ahaan kuwa baahiyaha gaarka ah qaba kuwaas oo u baahan caabinaad iyo daryeel gaar ah halkani waa xarunta naafada ee Sanca Center fanaanka ayaan u kuurgalay inuu soo xog wareysto xaaladda dadka naafada ee ku jira xaruntan kuwaas oo u baahan agab kala duwan oo isugu jira biraha socodka ee naafada wheelchair ama kursiga loogu talagalay dadka naafada ah usha ay qaataan dadka aragga la iyo baahiyo kale oo ay fanaanka u gudbiyeen dadkii uu wareystay marka hore dhammaan dadkii joogay xarunta ayaa si lama filaan ku noqotay inuu soo booqday dayax horta يعني qofka doo fanaan yahay ama wuxuu rabo ha ahaado ma ku xirno waxa sameynaysid inay ka tahay bilniya bil qof kasta waxa damqasho inuu lahaado waa inuu yani dadka yani kaliita ama dadku wax dheer yahay ma waa markasta inuu og yahay xaaladooda yani maanta daadad alxamdulillah inuu ugu filan waa haysta dadkaas kale wax ma yeegalin ama waxaas kale ay qabanayaan ama waxay xaaladii ku sugan yihiin no wax ma yeegalin daadad like biri ilaahay wuu awoodaa yani in heerka maanta joogtid heerka si fiican oo dadkaas geeyo yani dadkaas aliideysa ama sida xun oo laqmis ama dhehaysa maxaa yeegalay iyo jeeskaas biri xaaladda ku sugnaayeen xaalad ka sii hooseysa ilaahay yani wax kasta inuu bilcagsi ka dhig uu awoodaa soo marka ani ahaanteeda ma aaminsan qofka fanaan markuu yahay ama wuxuu rabaa ahaado yani waxaan wax hubigiisa waaye iyo waxaan kale oo sameynayna waa wax oo yani dadkiisa inuu ka warhaayo soo marka way fiican tahay in biri ficil fiican markaa sameysid dadka walaalahaaga aa caawisid waxa dhaantid ku caawisid way qurux badan tahay inaad sameysid yani ficil soo jiidasho leh adigoon ka ahayn dadka maanta wiji ugu sameyso ama dadkan kale yani dadka ku daawanaya wiji ugu sameyso ama status idoo ka ahayn oo yani wax kasta ay ka yihiin niyada dal nuurshe waxayna dareemeen in xaalad walba ay ku jiraan laga warhaayo waxayna ogaadeen bani aadamka inuu ku jiro sida dayax dal nuurshe kale fanaanka ayaa gudagalay xog wareysi iyo sidoo kale in mid uu xaaladoodii u weydiiyo dadkaas baahiyaha gaarka ah qaba waxayna u gudbiyeen fanaanka xog dhameystiran ee uu la wadaagay dadweynaha marka anaga waxa isku xilqaanay in maxaa la ii sheeg dadka wax u qabano oo dadka caawino oo waalidiinteen maanta waxa waa caruurtan soo korayso bari marka maxaa la ama geeriyoono ama maxaa la ii sheeg aan gabowno in ayaga wax noo qabtaan ama ay dhahaan qofkaas wuxuu noo qaban jiray marka si ilaahay dartiis okay ma sha Allah good point way yani ilmahan yaryarka hadaa ka fikirtid biri waa maxaa la jiilka soo baxay oo bixi soo baxay wadanka wax u qabalahay dadka wax u qabalahay soo marka waxa laga yaabaa yani markay duruuftan ku koraan yani dad u noox arkin qof yani dhibkooda ka damqanaya aysan arkin biri kan waxa laga yaabaa wax kasta caadi inay la noqdaan laakiin maanta xaaladda markay ku sugan yihiin dadka markay ka warhayaan oo qof walaalkooda u imaado ama bulshada magac ku leh ama yoosan ku lahaanin oo dhow maanta dadka waxaan walaalihiin ani soo dhiibay ama dadkaas aniga soo aruuriyay ama dad isku sii dadare isku keen soo dadare oo dadku wax isku soo dadare aysan ehelkooda ahayn aysan walaalahooda ahayn laakiin ee Soomaalinimo ku walaaloobeen markaas ilmi yani caruurtaas soo koraysa caruurta waqti ugu fiican ee maskaxdooda wax qabanaysa ku jira caruurta hadda meeshan ka muuqato soo marka biri waxay noqonayaan dad wadankooda ka fikira ama dadkooda ka fikiro ama wanaagaas loo sameeyay niyada ku haayo soo marka ma sha Allah way waxaan isku dayaynaa inaan wax badan ka bedelno maxaa la ii sheeg nolosha hadda halkan ka jirto hadduu Ilaahay raali ka ahaado waqtigan inoo saamaxo waa nolosha kulli baahiyooyinkiina dhan xagaana ay ku qoran yihiin hadda marka waxaan rabnaa kaleento barnaamijka ciidsiinta oo waxaan isku dayaynaa dadka yar caruurta yar oo aadka u yaryarna inaan maxaa la ii sheeg haddii Ilaahay raali oo ka ahaado inaan dhar ciid u sameeyno maalinta ciidana sida adduunka oo dhan iyo dadka muslimiinta oo dhan ay u ciidaan inay dadka waaweyn oo dhan oo halkan jooga oo waalidiinta leh oo dhalinyarada leh ayagana sidaas oo kale inay u ciidaan oo ciidda ala qaybsataan ummadda kale ma sha Allah wallahi waa ka yani wuxuu dhahay waxaan dhan isku soo
u sameynaya ama waxaa rabaa oo dhahay inay ciidaan caruurtan u ciidaan adduun weynaha siday u ciidayaan si lamid ah caruurta ha noqoto dadka waaweyn ha noqoto kulle inay isku sii u ciidaan maasha allah. horta ani videogan ugu horeyntii waxaa kusoo arkay tiktok weliba asagoo lagu soo qoray wax aan aad iyo aad u habooneen ama aan qurux badneen, waayo sababtoo ah ma aqaan dadka qaar waxay xumaanta ka dheefaan. waxaa lagu soo qoray Dayaxdal Nuurshe oo dhanka fanka shiid kala kulmay misna bilaabay inuu ku qaraabto dadka masaakiinta oo caawinaya. bro hadda fiiri lambara meeshaan ku qoran, waxaa laga yaabaa dad badan wax ay sii lahaayeen dadka masaakiinta inaad ka xasadid ama aad ka hor istaagtid, wax faa'iido ay kuu leedahay ma lahan, waayo sadaqada aad haddaa bixinaynin maxaa ka faa'iidaysaa haddaa ka xaasidid dadka sadaqada baxsa lahay, dadka yacni ajirka shaqaysa lahay, dadka wanaaga kasba lahay. ma aqaan dadka qaar xumaanta iyo waxaas waxay ka faa'iidaan, laakiin isku day xumaanta dhankeeda intaa aadi lahayd inaa aadid dhanka wanaaga, inaa aadid dhanka positiveka, inaa aadid, waayo sababtoo ah qofkan haddaa maanta wax u awoodin kumanaan qof kale aa awoodo inay maanta sadaqa siiso. war $1 ay iskugu soo dardarto 10 qof waxaa laga yaabaa wax inay u tarto way aa uga hor istaagtid ama sadaqadaas aa ka hor istaagaysid, adi ma qaadanaysid, lacagtin waa ka hor istaagtay. dadkan farxadooda ee iidu ku farxi lahaayeen ama whatever waxay rabaan ama iid haada ama yaysan ahaanin ee ku kaba lahaayeen baahiyaashooda haddaa ka hor istaagtid no faa'iido ma lahan. isku day inaa wanaaga qalbiga oo kasoo go-o. maxaa la ii sheeg halkaas joogto. waxaa kaloo insha Allah isku day karna doona oo gudoomiyaha ii sheegay biraha lagu boodo iyadana in loo baahan yahay iyo wheelchair-ka oo dadka maxaa la ii sheeg ku socdaan. gudoomiyaha xarunta naafada Sanca Center Cabdi Xuseen Cagalaab ayaa ka mahadceliyay booqashadii Dayaxdal Nuurshe isagoona si gaar ah farta ugu fiiqay inay u baahan yihiin in loo sameeyo shaqo abuur. marka xiga waxa maad iskale walaalkeen oo maanta nagu soo booqda xarunta naafada Sanca Center ayaa ugu mahadcelinay. waa fanaanka ugu horeeyay horta ee soo booqdo haddana dadka baahiyaha gaarka qaba maanta axwaashooda aan ogaha iyo arrimahooda ogaha dhahayo. walaa waa kay maasha allah farxadda ka muuqata fiir wejiyadooda. farxadda lagu sheegayo kuma xirno taajir data ama faqri data ama waxa taa kuma xirno, laakiin farxaddu waa wax aad samaysan kartid. maasha allah dadka maanta way iska faraxsan yihiin, haddana qofkan soo booqdo way ku faraxsan yihiin, wejigooda farxada ka muuqato. waxaas dhan ka burburinaysaa. isku day wanaag inaad samaysid sembri oo iskala weyneyn. marka alxamdulillah waxa waaye dadka baahiyaha gaarka qaba dad badan oo waxaa jiraan xoogaa iskala weynaba jiraan oo waxa kala jiraan laba kala duwanba. marka inuu ninka naafadii ama arkin oo qofka naafada ilaahay naafo ka dhiga dad aan ogeynaa jiraan. alxamdulillah waaye meeshaan horta u jeedaan centerkan waxa la yiraahdaa baahi badan ka jirto. baahida ka jirta dadkaana arkaysa hadda cidna u maqna ceel uma qodno. hadda gabdhaha arkaysiin waa gabdho garguurana waa wheelchair u baahan yihiin. waa kaya wuxuu dhahay baahida dadkan waa dad wada baahi iyo daruuf ka wada muuqato, waayo sababtoo ah dadna uma maqno ceelna uma qodno. yani micnaheeda qof ee maanta isku haleynayan ma lahan oo ahayn ilaahigaas. soo marka ummadan ilaah wuxuu ugu soo qaadi lahay qofku ilaah wax ugu soo qaada horta ma balaga hor istaagi kara, laakiin waxaa fiican sembiri in wanaag la sameeyo, masaakiinta laga warhayo, dadka laga warhayo. maasha allah wallahi waxaa uu sameeyay Dayaxdal Nuurshe ahaanteeda 100% waa ku taageersana. waa wax aad iyo aad u fiican maasha allah. waxaa kaloo jiro isheeg kuwa oo biro oo ku usbuuda jiraan biray u baahan yihiin. waxaa jira macallin oo harqaan oo dadka balaa jiro wuxuu u baahan mushaarka weyn harqaamo ku haysanaa. macallimad oo waxaa jirta cilaan saar ka saartaa jirta iyadana waxay u baahan tahay isheeg mushaar u baahan tahay iyadana ma awoodno. waa labada qofood oo faqriga ah ugu bixi karna waay. maalinta waxa waay inaan qof biriga wax nasiiso waxaa nooga fiican inaan wax barano oo shaqeysano wax isku tarnaa ka fiican. marka isheeg okay maasha allah wallahi niyaday leeyin ilaah u dhaaf, ilaah u siyaadiyo waxay rabaan ilaah u rumeeyo. waayo sababtoo wuxuu dhahay waxaa dadka meesha jooga waxaa ku jiro dhahay macallin oo dadka xarqaanka baro iyo gabar yani cilaankii waxaa saarto. waan labada qof oo yani aqoontooda ugu bixi karno baahida iyo faqriga, iyo markasta qof inaa waxna sii dhahno waa laga fiican oo laakiin inaa anaga shaqaysan ayaa ka fiican. sax waay maasha allah fikir fiican waayo fikirkiisa. maadaama ninkan walaalkayna yiri sheeg anigana inaa dhiirigelino maanta horta dhiirigelinayno tahay anagana ku soo dhaweynaa wax walba waxaa ka fiican ba sheeg asigana soo wacay haddana la soo xiriiray yiri haddana inaan arkaa raba horta maanta bal yaa dhaheena. marka waxaa kaloo haddana naafada qaasatan ugu codsanayna ninkan kaliya
maana wiilashan dhan inaa faataxada ugu madamartaan oo ilaahay cadowga ilaahay ka qabto. isla goobtaas ayuu fanaanka gaari ama kursi wiljar ah ku guddoonsiiyey mid ka mid ah odayaasha naafada ka ah lugaha ee ku sugnaa xaruntaasi, waxayna ku noqotay lama filaan iyo fajac maadaama uu u baahnaa inuu helo kursi uu ku maareyn karo howlihiisi gaarka ah. ilaaha mahad leh. halkan waxaa noogu yimiday nin maaragtay la yiraahdo okay ما شاء الله والله في فرحة كموقته كرسي وكان انت فرحة وجود فيلم ما شاء الله إله وسيادي فرحة هذا صو فيديو كان انت سايق جبيناها اسكت داي وناجي إنا مركز سميسيت والله دتك قار أو فيديو كان يحمات هذا يوح إعلان دوس عن دتك قار موجي والخوف كشخصيات كيس وحى وسميت تسكدها فكون مشغولين لكن وناجو سمينا فيري صو مركز عادي هذا وما تنتي داوشة فيديو كان داوتين إنا اسكسيدا إنا فيديو كان كسيدا هذا مرة ومركز إن شاء الله انت كل ما فيديو حيقا waxaa idin kay tagay sidaas iyo nabad geliyo.